November 17 1991 awoodii dagaalkii u dhaxeeyay qabaa'ilkii ku dagaalamay magaalada Muqdisho ee ciididii caalamada kala hogaaminayeen ayaa isu bedelay qaab qabiil ayadoona dagaalkaasi uu ahaa kii ugu xumaa oo dhiig Soomaali uu ku daato 9 Maarso 1992 qabaa'ilyaashii isaga soo horjeeda ayaa waxay wada saxiixdeen heshiis xabad joojin ah oo markaasi abaabushay qaramada midoobay laakiin ugu dambeyntii aanan suuro gelin Abriil 24 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa wuxuu qalinka ku duubay in Soomaaliya loo diro ciidamo nabad sugid ah oo markaasi dagaaladii u dhaxeeyay labada dhinac joojiya September 19 1992 qabaa'ilyaashii dagaalay ciididii caalamada ayaa ku soo laabtay Muqdisho isla markaana waxay diideen in la keeno ciidamo nabad ilaalin December 3 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aansaday in Soomaaliya loo diro ciidamo hubaysan oo nabad ilaalin ah oo markaasi hogaaminayo dalka Mareykanka December 9 1992 ciidamada badda Marines ayaa si toos cagta u soo dhigay xeebta magaalada Muqdisho kuwa oo loogu magac daray rajo soo celintii Soomaaliya ama howlgalkii rajo soo celinta Soomaaliya 15 Janaayo 1993 wada hadal ay markaasi soo abaabushay qaramada midoobay ayaa waxa lagu qabtay dalka Ethiopia ay ku munaaqashoonayeen maleeshiyooyinkii xilligaasi ku dagaalamay magaalada Muqdisho May 4 1993 Mareykankii ayaa toos u soo hogaamiyay ciidankii loo soo diray Soomaaliya ee markaasi loogu magac daray howlgalkii rajo soo celinta October 3 1993 18 askari ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxa lagu xasuuqay magaalada Muqdisho iyadoo ciidamada Mareykanka ay markaasi xasuuqeen dad ka badan 18 kaasi waxaana laga sameeyay ugu dambeyn film loogu magac daray Blackout Down kadib markii diyaaradda Hawk ay Soomaalida ku soo rideen magaalada Muqdisho March 28 1994 howlgalkii Mareykanka uu ka horkacay Soomaaliya ayaa si rasmi ah loo soo afjaray Janaayo 1993 Maxamed Siyaad Bare ayaa ku geeriyooday magaalada Lagos ee Nigeria Maxamed Siyaad Bare ayaa wuxuu noolaa intii u dhaxaysay 1919 ilaa January 1995 February 28 1995 ciidamada badda ee Mareykanka iyo ciidamada Talyaaniga ayaa ka qayb qaatay daadgureyntii ciidamada qaramada midoobay laga daadgureynay dalka Soomaaliya Agoosto 1996 Maxamed Faarax Ciidid ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal uu xilligaas ku jiray Ciididna waxa uu noolaa December 15 1934 ilaa Agoosto 1996 ilaa 1998 jaraa'id ka soo baxay dalka Talyaaniga ayaa waxa uu soo sameeyay ama uu soo daabacay qoraallo uu ku cadeynayo faahfaahin dheeri ah ka soo baxday markaasi sun lagu daaday xeebaha Soomaaliya waxaana suntaasi lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay ama qandaraaskaasi ay kala saxiixdeen shirkado ku yaala dalalka Yurub iyo Cali Mahdi oo ahaa xilligaasi kamid ahaana qabaa'ilyaashii Soomaalida kadib markii ku heshiiyeen lacag gaarayso 80 milyan oo dollarka Mareykanka sida bayaan lagu soo cadeeyay jaraa'idkaas ka soo baxay dalka Talyaaniga May 2000 shir Soomaalida loogu heshiisiinay ayaa waxa uu ka bilowday tuulada Carta ee dalka Djibouti Dr. Cabdulqaasim Salaad Xasan ayaa loo doortay xilligaasi inuu madaxweyne ka noqdo waxaana ra'iisul wasaare loo doortay Agoosto 13 ra'iisul wasaare Cali Khaliif Galleer oo ahaa markaasi nin dibadda in muddo ku maqnaa June 5 2001 Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa ninkii sameeyay calanka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada May 3 2002 Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ayaa ku geeriyooday magaalada Petros ee dalka South Africa waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya intii u dhaxaysay 26 June 1960 ilaa 12 July 1960 Cigaal waxa uu noolaa intii u dhaxaysay Agoosto 15 1928 ilaa May 3 2002 October 15 2002 shirkii 14aad ayaa waxa uu ka dhacay waa dalka Kenya ka oo Soomaalida lagu dhexdhexaadinaya September 15 2003 waxa lagu heshiiyay axdi kumil gaar ah oo markaasi Soomaaliya ay yeelato Agoosto 2004 ufuudi ka qayb galaysay shirkii Soomaalida uga soconayay dalka Kenya ayaa doortay 275 xildhibaan kuwa oo laga soo xulay qaab qabiil 4.5 Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa madaxweyne xilligaasi ka noqday dawladdaasi ayadoona ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi uu isna ra'iisul wasaare ka ahaa October 10 2004 baarlamaanka dawladda kumil gaarka Soomaaliya ayaa Cabdullaahi Yuusuf waxa uu doortay madaxweyne oo xilligaasi ama ahaaba nin markaasi Ethiopia ay taageerayso
November 3, 2004 madaxweynaha dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxa uu magacaabay ra'iisul wasaare oo waxa uu u magacaabay Cali Maxamed Geedi. December 1, 2004 Cali Maxamed Geedi ayaa si toos ah waxa loogu doortay in uu ra'iisul wasaare noqdo isagoona halkaas lagu dhaariyay. Waxa uuna soo doortay ilaa 27 wasiir oo xukuumaddiisa ay ku shaqeyso. Taariikh xun ayaa waxay dhacday March 17, 2005 ayadoona baarlamaanka Soomaaliya uu mar qura isku feeray ama kuraasu isla dhacay xilligaas ay ku sugnaayeen dalka Kenya oo uu hogaamiyay ama baarlamaanka uu ka ahaa Shariif Xasan. May 13, 2005 midowga Afrika ayaa Addis Ababa waxa uu kaga dhawaaqay in Soomaaliya u duraan 1700 askari kuwa oo ka qayb gala ama loogu magac daraba AMISOM. January 5, 2006 waxaa bilowday khilaaf u dhaxeeya Cabdullaahi Yuusuf oo xilligaas madaxweyne ka ahaa dawladdaasi iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ahaa markaas Shariif Xasan Sheekh Aadan. waxaana khilaafkaas mid soo jiitamay isagoona dhowr wadan oo kamid ah dalka Yemen lagu dhexdhexaadinay labadaasi madax. January 3, 2003 waa 2006 gudoomiyaha baarlamaanka ayaa shaaca ka qaaday in kulanka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya markii uu lagu qaban doono magaalada Baydhabo waxa uu gudoomiyaha markaasi joogay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. February 11, 2006 magaalada Gaalkacyo ayaa waxa kulan ku yeeshay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan iyo ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi oo markaasi ahaa khilaafkooda mid sii laba jibaarmayay. February 18, 2006 sidii qabqabla dagaal oo badankooda ah wasiiro ayaa waxa ay sameeyeen urur ay ugu magac dareen la dagaalanka argagixisada. 2006 February 26 baarlamaanka ayaa markii ugu horeysay waxa uu ku kulmay magaalada Baydhabo ayadoona taa ay noqotay taariikh weyn. February 28 Muqdisho ayaa waxaa looga dhawaaqay golaha kacdoonka difaaca diinta iyo dalka kaas oo ay ku dhawaaqeen midowga maxaakiimta Islaamiga si ay uga hortagaan isbahaysiga la magac baxay la dagaalanka argagixisada oo markaasi horkacayeen qabqablayaasha dagaal ee xilligaas ka jiray magaalada Muqdisho. March 21, 2006 waxaa Muqdisho ka dhacay dagaal aad u culus ka oo soconayay ilaa March 23 dagaalkaasi oo u dhaxeeyay midowga maxkamadaha Islaamiga isbahaysiga la magac baxay la dagaalanka argagixisada oo ugu dambeyntii si xoog looga saaray magaalada Muqdisho. Abriil 21, 2006 xubin ka tirsan isbahaysiga la magac baxay argagixisada la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in dalka ay ka dhisi doonaan dawlad ay maamulaan balse ugu dambeyntii ma aysan dhacin. May 4, 2006 madaxweynaha dawladda ku-meel gaarka Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa Mareykanka ku eedeeyay in uu gacan siinayo qabqablayaasha dagaal. maxaakiimta Islaamiga ayaa xilligaasi waxay ahaayeen kuwo guud ahaanba magaalada Muqdisho ammaan ku soo celiyay ayadoona 6 bilood ay maxkamadaha xilligaasi dhisnaayeen ay ahayd magaalada Muqdisho mid ammaan ahaan la isku haleyn karo guud ahaanba iyo koonfurta dalka Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah haatan madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilligaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxaakiimta Islaamiga isagoona inta badan ka qayb gali jiray shirarka iyo arrimaha looga hadlayo maxkamadaha iyo ammaanka magaalada Muqdisho. June 4, 2006 midowga maxaakiimta Islaamiga ayaa waxay la wareegeen magaalada Jowhar oo xarun u ahayd qabqablayaal dagaal. Sheekh Shariif ayaa isla maalintaasna waxa uu la hadlay reer Jowhar waxa uu ku yiri waxaan idin wadaa kitaab. June 4, 2006 baarlamaanka Soomaaliya ayaa Baydhabo ku ansixiyay Soomaaliya in la keeni karo ciidamo shisheeye waxaana dalka soo galay xilligaas wixii ka dambeeyay ciidamo Ethiopian oo markii horeba ku sugnaa xuduudda. 125 xildhibaan ayaa ansixiyay waxaana diiday 73 xildhibaan. Inkastoo khilaafku u dhaxeeyay dawladda ku-meel gaarka iyo midowga maxkamadaha Islaamiga ayaa haddana waxaa jiray shirar gooni ah oo markaasi la dhigi jiray ama loo qaban jiray labada dhinac. June 22, 2006 heshiis ayaa waxa magaalada Khartoum uga dhaxmaray midowga maxkamadaha Islaamiga iyo dawladda ku-meel gaarka. Shirkaasi oo loogu yeeray markaas ama ay ku sugnaayeen madaxda dawladda ku-meel gaarka iyo waliba dhanka kale madaxda maxkamadaha Islaamiga ka oo ugu dambeyntii isna fashil ku soo dhamaaday balse heshiiskaasi ayaa waa mid soconay oo wax badan ka qaban kara guud ahaanba dalka Soomaaliya. September 18, 2006 waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo loogu damacsanaa in lagu dilo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed balse ugu dambeyntii qaraxaasi uu ka badbaaday Cabdullaahi Yuusuf. September 4, 20 midowga maxaakiimta Islaamiga ayaa la wareegay gacan ku haynta
magaalada Kismaayo kadib markii magaaladaasi ay ka baxeen wasiirkii gaashaandhigga dawladda kumargaarka ee xilligaasi Barhiiraare oo dagaalo markaasi kula jiray dhanka maxkamadaha Islaamiga. January 1 2007 maxkamadaha Islaamiga ayaa ka baxay magaalada Kismaayo kadib markii ay dalka soo galeen ciidamo Ethiopiana oo markaasi dagaal toos ah la galay maxkamadaha Islaamiga. June 5 2007 ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ethiopia Meles Zenawi ayaa magaalada Muqdisho ka soo degay isagoona shir gooni ah la yeeshay madaxweynaha xilligaasi Cabdullaahi Yuusuf. June 8 2007 aadan Cabdullaahi Cismaan aadan Cadde oo ah madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya ayaa waxa ku geeriyooday magaalada Nairobi oo markaasi aadan Cadde uu noolaa 1908 ilaa 2007. June 8 October 29 2007 Cali Maxamed Geedi ayaa iska casilay ra'iisul wasaarnimadii kadib markii khilaaf soo kala dhaxgalay Geedi iyo Cabdullaahi Yuusuf ugu dambeyntii ku soo afjarmay in Cabdullaahi Yuusuf uu markaasi ku tago Cali Geedi. waxaan xilka loo magacaabay Nuur Cadde oo ahaa markaasi ninkii siyaasad cusub ka abuuray guud ahaan siyaasadda Soomaaliya. December 2007 hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in sanadka 2007 tirada Soomaalida ee lagu dilay Soomaaliya ay gaartay meel aad u sareyso ayadoona ku qiyaasay ilaa 6,000 oo ruux. tirada diiwaangeliyay December 29 2008 Cabdullaahi Yuusuf ayaa xilkii madaxweynenimo iska casilay ayadoona guud ahaan xaaladda Soomaaliya xilligaasi isu bedeshay siyaasad hor leh waxaana durbaba meesha ka soo muuqday xoogii maxkamadaha Islaamiga ee markaasi uu wiiqmay oo dib isu soo unkanaya. January 30 2009 kulan ay xubnaha baarlamaanka ku yeesheen Djibouti ayaa waxa madaxweynaha dawladda gumeelgaarka Soomaaliya loo doortay Shariif Sheekh Axmed uu kaga guuleystay Maslax Maxamed Siyaad Barre tirin la sameeyay codadka dhankaasi. February 13 2009 madaxweynaha dawladda gumeelgaarka Soomaaliya oo ku sugan Djibouti ayaa ra'iisul wasaaraha waxa uu doortay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke. siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligaas waxay ahayd mid iyana sii badbedelaysa maalinta ka dambaysa ayadoona ugu dambeyn Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke uu xilka isna iska casilay ugu dambeyntii 2009 waxaan xilka loo magacaabay haddana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qurba joogga Soomaalida oo in muddo 6 bilood ku sugnaa xafiiska ra'iisul wasaarenimo. khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii waxa uu keenay June 9 in ay ku saxiixdaan dalka Uganda heshiis sheegaya in Farmaajo uu xilka iska casilo. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed haatan waxa uu doortay ra'iisul wasaare cusub oo u doortay markaasi Cabdiweli Gaas oo ka mid ahaa wasiiradii Farmaajo. waxaana dawladda kumeelgaarka 20 ay ku wada dabaaldegeen Villa Soomaaliya iyadoona meesha uu ku sugnaa ra'iisul wasaarihii hore dawladda kumeelgaarka Soomaaliya Farmaajo Shariif Xasan iyo madaxweynaha dawladda kumeelgaarka Soomaaliya oo khilaaf xoogan muddooyinkii u dambeeyay uu ka dhex aloolsanaa. xaaladda guud ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxay ahayd mid khilaaf soo kala dhaxgalay hukuumadii ugu badneed ee yeelatay ra'iisul wasaare waana ra'iisul wasaarihii saddexaad ay haatan yeelato. qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Kenya ayaa waxay xaflado u gaar ah maalinta xuska mudan waxay u dabaaldegayaan 1 Luulyo ayadoona xaflado waaweyn ay ka dhigayaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Nairobi. kamid dadkaasi safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo haatan abaabushay xaflad lagu xusay maalintan weyn ee 1 Luulyo halka ururo badan oo ka mid ah Soomaalida ay haatan inta ka wadaan qabanqaabyo munaasabadaasi caynkaasi oo kala ah. qaar ka mid dadkaasi oo aan la kulma ayaa ii sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin sanadkan ayna markaas nasiib u helin inay dalka dhexdiisa ku xusaan dalkii oo weli nabad ah maadaama haatan Soomaaliya ay weli ka jiraan dagaallo iyo colaado aan dhamaad lahayn muddo ka badan 22 sano. Faadimo waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ee ka soo barakacay magaalada Muqdisho ee haatan ku sugan dalka Kenya. waxa ayna ii sheegtay inay aad u jeclaan lahayd haatan in ay ku sugnaato magaalada Muqdisho ayna markaasi 1 Luulyo ka xusto dalkeeda hooyo ayadoo markaasi haysata nabad. Bismillahirrahmanirrahim. magacaygu waa Faadimo Cabdi oo ku nool dalka Kenya qaasatan xaafadda Islii. waxaan inta aan ku farxadayda aan ku muujinayaa sanad guurida dalka 51 gumeystii dalka Ingiriiska markuu naga tagay xoroobeen gobolada Soomaaliya ee la isku yiraahdo waqooyi galbeed. waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan ka xumahay inkastoo aan wadanka joogin oo aan ka qayb gali karin laakiin si farxada iyo si niyada ayaan ugu qayb galayaa.
markaan dal dadka Soomaaliyeed waxaan ku baaqayaa meel kasta joogaan culimo diinka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo qaasatan dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha cusub oo hadda la magacaabay Cabdiweli Gaas inay nabadda ka shaqeeyaan si aan u helno xornimadeennii hore ee dalka Soomaaliya ma ahan Faadumo oo kaliya dadka haatan ku sugan dalka Kenya balse Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka ku sugan dalka Kenya oo aad iyana u jecel in ay Soomaaliya u laabtaan maadaama dalkan Kenya uu yahay dalka ugu horeeya ee Soomaalida markay soo cararaan ay markaasi soo caga dhigtaan guud ahaan qaaradweynta Yurub iyo Ameerika ayaa iyana waxa ka jira munaasabado caynka oo kale oo Soomaalida isu abaabulayaan sidii ay ku xusi lahaayeen maalinta qiimaha leh ee 1 Luulyo waxaana Soomaalida ay tahay mid aanan weli maskaxdooda ka tirtirmin xitaa caruurta dhalaanka ee dhawaan lagu dhalay dalalka Yurub iyo Ameerika ayaa haatan waxay yihiin kuwa iyana ka warhaya wacyiga dhabta ah ee ka jira Soomaaliya inkastoo aysan aqoon iyo aqli buuxa aysan u lahayn ama aysan ka haysan iyo xorriyaddan macaanta badan heerka la soo maray intaas ayaan ku soo afjarayaa barnaamijka gaarka ee 1 Luulyo aan ugu talagalay in aan ku qafaaqadno waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhageystayaasha qiimaha iyo qayaha mudan barnaamijka dhageysanay waxaan idin akhrinay aniga oo Maxamed Ibrahim Ayaalna oo haatan ku sugan dalka Kenya gaar ahaan caasimadiisa magaalada Nairobi kulanti wacan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh